halkan waa mid ka mid ah suuqyada kalluunka lagu iibiyo ee Muqdisho. Socdaal ujeedkiisu ahaa qiimeynta kala iibsiga kalluunka iyo sare u kaca ku yimid ayaan ku gaarnay kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. noocyada kala duwan ee kalluunka ayaa lagu iibiyaa halkan, waxaana indhaheenu ay qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo doonaya inay iibsadaan kalluunka. xilli dhawaanahanba magaalada Muqdisho sare u kac aad u balaaran laga dareemayay iibsiga kalluunka ayaa ganacsatada ku iibisa kalluunka kawaanka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo nala hadlay waxa ay inoo sheegeen in lagu gudo jiro xilliyada badfuranka isla markaana qiimaha kalluunka lagu iibiyo uu yahay mid qiimo jaban. waxayna sidoo kale ganacsatadan inoo tibaaxeen in kiilada kalluunka markii hore lagu iibin jiray $10 balse haatan lagu iibiyo $3. magacay Axmed Muumin Iikar kawaanka Malayga Xamarweyne ayaan joognaa degmada Xamarweyne. marka Malayna waa kan yumba cadaan la kan yumba la kan jaadar way toona ka saxway. marka kiiladiina waa kana miisaankan iska fiiri saasa loo cabira miisaanka iska fiiri 2 kiilo way kala waxa ka 2 kiilo joognaa kaas waa faanay guud ahaan xaalada sidee Malayga iyo xaalada badda ay wallahi alxamdulillah shukr العالمين حتى انا waxaan ku fagnaa waa cilmi caan Malayga badda wiil hadda xilli furaan ka dalay jooga waa xilligii waaye xilli bad furaanka aan joogna hatta wada hooyadna waa maqlo saarmayadeed waa qofta islaamta oo bidoomaa leh midada kale xagay markii la gaarno noocan camal lama helo naxaaskii libaan galna ay qiimaha kawaanka Malayga lagu iibiyo hoos u dhacmaya jira mise qiimo koraya jira wallahi hoos u dhaca jira kiiladii darad waxaan gadeynay $10 oo ilaahay looga Malayga markuu badda kacdo haddana waxaan gadeynaa kiiladii $3 $3 aan saako qaadnaa $4 $5 aan gadnaa markii madax iyo caloosha laga bixiyo soo nadiif waxaan gadnaa $5 hadda maxaa keenay qiimaha saakida wallahi waxa keenay zaidkiya dadka batay shaqada doomiya lagu soo bateen shacbiga soo bateen kuwii Yurub jiraan inta maadeen doomiya hadda waxaan saarnaa baraf bukusyaal dadka shaqada diyaar u yihiin dhibaato kala kulantaa waa dhibaato maya waa asmar marmar waxa jirta oo ragii macal doomooda la waayay oo hatta loo maqan raga naga maqan oo badda loogu maqayin waxna waa la helay Siriyaan kan keenay ilmaan dhan Xamarweyne jaamacadda degiin wal yaqaan badda ee baad hal bilood badda iskaysat mar ayna la helay hadda badfurinka la gaaray hadda badfurinki waa iska dhaafay kan gacanta shaqeynaysa iska dhaaf kan volva hadda shaqeynaa doon gacmeedka diyaar kala suwaadi meedal soo waani tusla waana qancilin see u shaqeynaa sidii dardi oo kale waa aad wanaagsan yahay Malayga xagay waa ka baxnay xagay ka baxaan ku jirnaa deeraan ku jirnaa hadda waqtiga oo xilliga Malayga aan ku jirnaa hadda waxa la gadaa $8 la gadaa xilliga xagay ku jirnay hadda $4 $3 Malayga joodarka noo bilaabtay Malayga isku dhac mukamaanay Malayga isku bax xilli xagay ku jirnay xagay aan ka baxnaa xilli xagay Malayga xilliga sarkaa waxa ku jira Malayga bad fureen ku jirnaa badda waqti bad fureen ka ku jirnaa soo gaarnay يا ما شاء الله الحمد لله ملايين واسكا دقنا ولبدان بير قالي laakiin maanta wixii hadda addi kadib malaay xoo qiimihiisu waa daga badana 100% kiilo ilaa kiilo jaadar wuxuu gaaraa $3 iyo bar yumbi wuxuu gaaraa $3 tartawada waa imaay wax walba oo malaay dhulku gaaraa sidii hore ma aha xoogii malaay waa isjibiyay malaay waa iska dab imaan maanta foolfaasha dhan waa wada baxeen malaay qiimo jaban suugeena awal wallahi dib weyn ku qabnay macnaha malaayga macnaha dabeela kacsaneed bad Malayga laga keenay khaaliya la gadaa hadda iimaanta farqiga shalay iimaanta farqiga u dhaxay farqi aad weyn ma sha Allah labada maalin alxamdulillah waxay sheegnay dambu al-yawm saxa laga helaa Saki Ibrahim Ali wararka TV Muqdisho.